بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان كريم مدى الصوماليات يوم مدى الإسلام كامل كستو أشوكتان ما أنت waxaan dul istaagayaa lafta gareen iyo sirihii uu banaanka keenay dhowr bilood ka hor waxaan idin sheegay dowladda xasan iyo shabaab in heshiis dhex maray heshiiskaasna ay garwadeen ka tahay dowladda qatar wax kastana la isku afkartay dalka in la wada qabsadana laga heshiiyey konton in loo kala qaato laga heshiiyey maanta markhaantigeedii waxaa si toos ah igu markhaanti furay hadalkii madaxweyne cabdicasiis lafta gareen balala dhegeyso waa kane waxyaalaha mucjisada ah oo la yaabanahay waxa isdhex galay oo isku ajenda noqday federaalkii dawladdii iyo shabaabkii waxaa marqaati madoonto ah nin wasiir ah yaa wuxuu soo wacay ciidan jooga qoryooley ninkii taliyaha ahaa buu wacay wuxuu ku yiri taliya mii maqashaha adinka roolkiina haray hadaa hebel tihiin annaga degmo hebel isaasaan yeelnay waxa leen ka rabaa inaa hadashaan inaa tirahaan koonfur galbeed ma rabno ninka sarkaalka waa ku celiyay wuxuu dhahay inaa hadalno in lacagna loo soo diray waa garanay laakiin say buur ku tageynaa buuri annaga iska dhaafay magaalada geeskeeda uma tagi karnay annaga la hadlayna nimankaas ayaga idin waday ayaga idin geenayo waxaan ognahay baabuur iyo rasaas iyo hub dawladda ay soo dhiibtay oo shabaab la soo dhaxmariyay si u soo socday buur la keenay oo la furay oo dad maleeshiyaad ah la aruuriyay loo qaybinayo waayahay markhaantigii hadalkaan idin lahaa 3 bilood ka hor aan idin lahaa qatar ayaa doorka dhexdhexaadinta qaadatay dowladda Soomaaliya xasan oo matalaya madaxweynaheedina ku fadhiya kursigiisii ayaa heshiis la galay al-shabaab waxaana lagu heshiiyey dowladnimada in loo qaybsado konton maanta cabdicasiis wuxuu idin cadeeyey in qabiiladii la aabulayo shabaabtu kaxaynayaan leeyahay halkaa ay shabaabka u taga shabaabka anaga ka gudbinayne si aad dowladda lafta garan xukuumee koonfur galbeed aad u weerarhaan taasi waxay idin cadaynaysaa 3 bilood ka hor xogtan idin siinayay maanta markhaantigeedii inuu kaayay xasanna maanta qofku yahay aad aragtaan shalay waxaad arkayseen ama media ka aragteen ciidan niman dhalinyaro la soo aruurshay dhowr gaari wata tuuto loo soo gashay qoryo la soo siiyey oo leh annagoo ah ciidanka calmiska dhifore Ferris ciidan la yiraahdo annagoo ah baa madaxweyne dali baa saan noo galay xamar buu aaday siyaasad ka shaqeynay haddaan idin ilaha ka warramo ciidankaas hal mid oo ka mid ah hadda waa hal maaha ciidan ka hadlamayba hal mid oo ka mid ah oo ah ciidan dowladeed ama ciidanka calmiska ka dagaalamay kuma jiro baabuurtaas iyo maleeshiyaadkaasba waxaa aruursaday nin la yiraahdo maxamuud mashruuc cali salamaan waana soomaalidii ku jiri jirtay daacish ee qabiilada dabada la galay qabiilka galay ayaa la soo aruuriyey qoryo baabuurka loo dhiibay maxamuud mashruuc iyo gallan ayaa ciidankaas aruuriyey samaystay waa kuwii waa dhawad boos markuu tagayay ku soo dhaweynayay weli maqashaan ciidan magaciisa la yiraahdo calmiskaas defense force ciidan la yiraahdo jira ma jiro calmiskaas waa deegaan ciidankuna guuta koobaad qayb hebel haddii aan la urur hebel bulley muuqaalkooda ma dhegeysatay ciidankana la yiri ciidanka waxaa la yiraahdaa calmiskood defense force baa la yiraahdaa hataa ciidamada ma yaqaanaa qof ayaga ka mid oo faliyo baaga ciidan galay weligii kuma jiro faliyo baagada daacish ma ahay mid faliyo baaga ciidan galay weligii kuma jiro xasanna ciidankiisu waxyaalaha noocaas waa maleeshiyaad la aruuriyo waa haddii alla ku idnahay wixii la oran jiray macawisley oo kale waa haddii alla ku runay argagixisada haraadigooda la aruursado waa argagixisadoo la garab loo noqdo waa sidii tabta hadda shabaab ula galay haddii alla ku royahay baycada ola galay ama ola galay
inay isgarabsadaan oo ummadda wada laayaan oo federaalka burburiyaan oo dowladnimada Soomaaliya wada xirabdaameeyaan ayuu daacishna ola galay. daacish firxadkeedii ayuu ciidan ahaan u qoranaya. marka dalka Soomaaliyeed madaxweyne Cabdicasiisna waxaan leeyahay waa mahadsan tahay. sir badan oo ummadda ka qarsooneed bad bannaan ka dhigtay. dadka reer Puntland waxaa u sheegaya war wixii shalay aad arkayseen wax ciidan Puntland ciidan la yiraahdo baalka ma jiraan. haddaan been sheegayo bal ninkii inta soo hadla ha yiraahdo guuta hebel baan ahay, urur hebel baan ka ahay, qaybta hebel baan ahay, haddii alla ku rooyahay ciidanka waxaan nahay magacaana baan nahay. ciidamada Puntland dhammaantood wixii ciidan ahaa oo fuliyo baaga dowladda ku jiray inta calmiskaad hadda jirto dagaalamaysa maaha. intii kale waxaa la gashay reforce baa loo diray in dib u habeyn lagu sameeyo. xeriyeen ku jira baran haddii alla ku rooyahay xorgoble gaalkacyo godad loo diray inta xero Puntland leedahay ku jiraan iyagoo falcelin lagu samaynayo. wax ka jiraan ma jiraan. waxa aad arkayseen waa kuwa lafta gareen macnaha lagu bahalkeenayo leey shabaab soo gudbinayo kale waa kuwii kale daacishada ina mashruuc iyo galan bana maleeshiyaadkaas aruursaday baabuurtan iskale. haddii ay dhaqdhaqaaqa sameeyaan ama dowladdu tilaabo ka qaadana waa ina mashruuc iyo galan wax tilaabo laga qaadan. lafta gareen waxaan leeyahay madaxweyne guuleyso. Puntland shacab iyo ciidanba oo ku garab taagan yihiin. dadka Soomaaliyeed indhihiinu kor ahada. hal qodob kale ku daraya xasan 57 maalmood baa ku dhiman. dad waxaad ka haysaa guulaawe iyo qorqor waa ogna saasoo kuu fiish adna kuma kalsooni asna kuguma kalsoona. maha salaad iyo liibaan baa saa u agtaagan. anyway xataa hadduu kula joogo xasanow dowladnimadii Soomaaliya ee qaranka ahada shay lagu dhiibay ayadoo maanta hiraab hawiye maaha hataa hawiya ku qaadi waaye ayadoo maanta hiraaba baad huganta. war qabiil wax dheer ma jiro. war qabiil ma xukumi karo. war cagaha dhulka dhigo oo hadda kaasoo dhammaatay oo derbiga soo salaantay lafta gareen baa bahasha kuu qurxinayay oo malabaaniga kuu maranayay malabaaniga asaguna qaadada iyo fargeetadii dhig qoriga buu qaato halkaas istaag. war adeer gacali nin hiraabaa tahay hiraabnimada inta aaminti oo mooryaan hiraaba ha noqone nabadoon hiraab noqo oo kula talinaya xasan. nabadoon hiraab maanta hiraab baad noqotay oo nin hiraabaa tahay nabadoon hiraab noqo mooryaan hiraab ha noqone. bahashu intaad taqaanay dhaaftay waxa kastoo aad ku xisaabtamaysayna soo ilaade fadlaku marka waa ku naseexaynaa iska dhiib inta hadhay waxaad tidhaahdaan xaasha lillaah liiga badidhe. dowladnimadii maanta Soomaaliya dir banaanka ka joogtaa. digli marifle banaanka ka joogaa. daaroodna banaanka ka jooga. 4 beelood wax loo qaybsanayay bar. waxa maanta aad ag taagan tahay waa reerkaagii oo aadan qayb hayne aad qayb haysid hiraab ligaada haysid. haysid markaan ku leeyahay waa labada nin baad ka haysaa. waxa Muqdisho dhoobanay muqaradka kugu waana waa isla reerkaagii weliba abgaad. niyo marka waa ku fashilantay iska dhig intaadan ku dul dhiban iska dhig. xaasha lillaah waa la kala badin jiray waa laga badshay bande bahash turubka ilo bande aan al-shabaab fitada la gelin mar daacish fitada ha la gelin marba meel ha isku qaadin. walaalow isdhiib. ninka raggaahi in laga adkaada ceeb maaha ee waxaa daran inuu asagoo cararayo oo fool xun oo kabo ka go-een inuu dhinto daran. aad baa idin salaamaya xasana nasteexada ee gaarsiiya wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatu.